Jamie Carragher oo si aan horey loo arag u weeraray Mo Salah. Jamie Carragher ayaa soo bandhigay qiimeyn adag oo ku saabsan hoos u dhaca Liverpool, isaga oo sheegay in Mohamed Salah lugihiisu dhamaadeen kadib markii kooxda lagu xaaqay 4-1 kulankii Champions League ee PSV ay ku ciqaabtay Anfield. Difaacii hore ee Liverpool ayaa tilmaamay in Salah, Virgil van Dijk iyo Alisson Becker aysan hadda ku jirin heerkii ugu sareeyay ee lagu yaqaanay, isaga oo xusay in Salah uu lumiyay orodkii xawaaraha lahaa ee uu ku caanbaxay. inkasta oo xil ciyaareedkii hore uu dhaliyay 34 gool iyo 26 caawin dhammaan tartamada oo idil. Carragher wuxuu yiri bilowgii Liverpool waxaa horseed u ahaa Alisson, Van Dijk iyo Salah. Alisson hadda dhaawacyo badan ayuu la dhibaatoonayaa, uma ciyaaro sidii hore. Van Dijkna ma ahan ciyaaryaankii hore. Mo Salahna waxaad moodaa lugihiisa inay dhamaadeen. wuxuu xusay kala duwanaanshaha safarka Liverpool laga soo bilaabo heerkii sare ee 2018 ee waqtigii Jurgen Klopp ilaa dhibaatada uu hadda la tacaalayo Arne Slot, isaga oo ku booriyay Salah xaliyay kooxda inuu muujiyo hoggaan iyo daahfurnaanta taageerayaasha hortooda ah, iyadoo kooxda laga badiyay 9 jeer 12 kulan ee ugu dambeeyay. Carragher wuxuu sidoo kale tilmaamay in saxiixyada waaweyn ee kooxda sida Alexander Isak iyo Florian Wirtz aysan weli soo bandhigin waxqabadkii la filayay, halka Ryan Gravenberch iyo Alex McAllister ay u muuqdaan kuwo aan isku kalsoonayn. inkasta oo uu qirtay in dhaleeceynta ay adag tahay, haddana wuxuu sheegay in ciyaartoyda waaweyn ay tahay inay mas'uuliyadda qaataan, wuxuuna ku daray in Van Dijk hadda uu u baahan yahay gargaar halkii uu isaga bixin lahaa. maalin wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaana waxay qayb ka tahay barnaamijkeennii bandhiga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biiro oo ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. mahadsanid.